ragga iyo dumarka ilaahay way u simeeyeen oo de labadaba waa khalqigiisii oo wada abuuray oo uma kala eexanayo oo wax ugu eexdaaba ma jiro waa addoomihiisa kuwana isaga abuuray ragga dumarkana isaga abuuray marka sharciga ilaahay wixii uu ku kala duway ragga iyo dumarka facala ra'si wal ayn waa in la aqbalo oo aan laga soo horjeesanin oo ma diidin ragguna ma diidi karaya dumarkuna ma diidi karaya masalooyin fiqi ahaan ama sharci ahaan ragga iyo dumarka uu sharcigeenu ku kala duway ayaynu qaar ka mida ka soo qaadan doonaa lilmacluuma ama faa'iidaysi daraaddeed si aynu u faa'iidaysano qof kastoo muslima rag iyo dumarna ma ka hor imanayaan oo ragguna ma odhanayaan dumarka maxaa waxyaabaha dheeraad loogu siiyey ay ragga uga duwanaadeen waa waxyaaba waxa ku jira dumarku ay dheeraad ku leeyihiin dumarkuna ma odhan karaan waxyaabaha maxay raggu dheeraad ugu yeesheena sharcigu siiyey ee ilaahay qorshihiisa cid waliba way aqbalaysaa daraasadaha mar walba lagu sameeyana sharcigu siduu yidhi bay ka markhaati kacayaan iyo xigmadda ku jirta baabka tahaarada markaynu u noqonno sharcigeennu wuxuu kala duway wiilka iyo gabadha kaadidooda inantana waa la maydhayaa inankana waa la rushaynayaa gudniinka ayay ku kala duwan yihiin oo raggana waa waajib la isku waafaqsan yahay dumarkana waa la isku khilaafsan yahay kaa yare sunnigaabaa jiraya iyo maba jiro labadaba la yidhi oo waa masalo khilaafiya dumarka ama karaam uu yahay ama sunni uu yahay amaba waa la iska dayn karaana qayb madaahibta qabaa waa jiraan waxay ku kala duwan yihiin madaxa xiiristiisa oo wakhtiga xajka oo kale dumarka laguma waa sunno uma aha inay timaha xiiraan ragga laakiin waa u sunni waayo quruxda dumarku maxay ku jirtaa timaha aw man yunashau fi lxilyati wahuwa fi lqisaami hayru mubiin marka isagiioo bidaarta yaro dhowrayaa laleeyahy dhukurashadaa kuu fiican iyadiina waxaa la leeyahy iska feedho inaad xiirtaa saxba maaha waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin waxaa ka mida ruuxa dumarka ahi maadaama ay cawratay cadowgeeduna badan yahay udgoonka iyay dabadda ula bixin baa layihi rag badanoo saqajaanaa jiro oo itaaliya awood aanay u lahayn inay iska celiso meelaha ka eeganaya jiniyo insiba leh raggu laakiin way ula bixi karaan dumarka waxaa la yidhi iska xinayso laakiin geedkan waxaa la yidhi ragga la idhaahdo adigu ha xinaysanin waxba faraha inagu soo casayn waa shaqadii dumarka dharkoodu way kala duwan yihin oo ma doonayna dhar loo yaqaano waryaana ayaa dhar ragguna gashanayo dumarkuna gashanayo magaciisa waryaana ayaa la idhaa ma naqaanee ragguna dhar bay leeyihin dumarkuna dhar bay leeyihin labada arrimood ee ugu cajiibsanee dahabka iyo xariirta ragga waa laga joojiyey dumarkana waa loo fasaxay bal ka sheekee maxay kuwii odhan jiray dumarkaa laga eexday bahalkii dhammaan dhalalacda hayee hilaacayay ee aakhirana ahlu jannuhu way gashanayaan soo maha xariirta iyo dahabka rag iyo dumarkuba aakhiro way gashanayaan laakiin adduunka dumarkunbaa la yidhi dahabka iyo xariirta ha haystaan ragga waa ka xaaraan qoladeebaa loo eexday dee waaye xigmadaha ku jira hadda la helay casrigan oo runtii dumarkana aan dhib ku keenayn raggana arrimahaasi ay dhib ku keeni karaan cawrada rag iyo dumarku way iskhilaafsan yihin taana dabeecadooda iyo siday u abuurayin baa keenaya oo inta iyadoo asturaysaa way ka badan tahay inta uu isagu asturayo sharci ahaan arrinta adaanka raggu wuu adaamayaa dumarkuna hoos bay u odhanayaan hadday adaamaysa nafteedunbay maqashiinaysa laakiin ma qaylinaysa iyadu salaadana haddii ay doonayso inay kor u qaaddo dumarka la tukanaya maqashiinaysa laakiin rag ajaaniba ma maqashiinayso ruuxa dumarkii marka imaam noqonayso dumarka kale isdhex taagaysaa ninkuna halkaa koonaha hore ayuu u baxayaa taasina waa masale ay ku kala duwan yihiin masalooyinkaay ku kala duwan yihiin waxaa ka mida raggii waxaa ku waajiba shayga loo yaqaano jumcada iyo jamca dumarka laakiin kuma waajibahee sunnuun bay u tahay markay dhintaane la kafmayo ninka 3 maraa lagu kafan looga dhigaa iyadana 5 baa lagu xidhaa jinaasadda haddii rag iyo dumar ay isu yimaad meesha lagu wada tukanayo waxaa la soo horraysiinaya xagga ragga soo xigaya ragga dumarkuna xagga dambe xigayaan howlaha jinaasaddu maadaama yihiin wax adag waa hawl ragga u taalla qaadista ku tukashada
xabaasha qodisteeda iyadoo rag la waayo mooyaane hawshaasi waa hawshii ragga ayay u taallaa hawshaasi ruuxa dumarka ah sekadeeda ninkeeda iyo caruurteeda way siin kartaa laakiin ninku sekadiisa ma siin karo xaaskiisa iyo caruurtiisa waayo biilkoodii baa ku waajibay iyada biil kuma waajibin laakiin ninkii biilkii baa ku waajibay maxay odhan waayeen gaaladu ruuxa dumar ha masruufto ninka miyaa ka maqasheen wadamada gaalada oo dhan ninka lagu waajibiyaa markay had iyo jeer haddii muran yimaado ninka la yidhaha shaqadaada waxaa laga jarayaa biilka oo dee waxay doonaysaa isagu wuxuu doonayaaba iyadu doonaysa aqal oday ehel caruur intuu isagu doonayaba iyana way doonaysa maxay odhan waayeen adigaagan heblaayo ninka adaa guursaday dee biilka sii ma odhanayaan waa sidii dabiicaddii fidradu ay waafaqsanayd iyo sharcigu ayay qaateen isagii bay saarantay markaa biilkii maadaam isaga lagu leeyahay ma siin karayo sekadii waxyaabahaas iyo runtii qaar kaloo badan oo imika aynu dee aynaan wakti u heli karayn waa ilaa dhowr iyo 30 masalo waxa ay la goon dumarkii rag waa arrimaha waa ku kala gooni sharciguna waa ku kala saaray mid walibana xigmadeeda ayay leedahay oo inaynu dee ilaahay ku waafaqna subxaana wa tacaala ayaa waajiba maadaam shaqadiisu debadda ay tahay iyadana shaqadeedu guriga ay tahay dee isagu shaqadiisii buu qabsanayaa iyadii ka fasax qaadan maayo ila hawshiisu waa debadde laakiin iyada maadaam shaqadeedu ay guriga ahayd oo ubadkii iyo ammaanadii iyo aqalkii ay ahayd oo taasi u dhib yarayd markay ka tegayso hawshan waa inuu la ogaado oo idankiisa ay ku socoto xajka marka ay tegayso maxram bay u baahantay iyo safarkii labadaba dumarka islaamku u naxariistay waqtiga xajka waxa la dharkiina iska qaba ninkana waxa la isfaydfaydo laba go-on qaado dharka kalena dhigo iyada laakiin wajigii un bay banaynaysaa iyo labada gacmood tawaafka la yiraahdo tawaaful wadaaca marka xajka la joogo ruuxa dumarka ah haddii caada ka timaado waa laga saamaxo iska carroobaa la reerkaagii iska tag laakiin ninku kama tegi karo waa waajib waxyaabaha iyada loogu fududeeyay wey waxyaabaha loogu fududeeyay waxaa ka mid ah marka xajka la joogo la tawaafayo iyo marka safa iyo marwo la marayo iyo kacbada waa la gucleeyaa raggu jeeni qaar baan u sameeyaa dumarka aayar iska socda baa leeyahay waa la idin turayaa marka iyadu way iska tallaabsanaysaa iyadoo odaygeedii gifta ay oo uu gocleynay hawsha aadka wadaga jihaadka la yiraahdo ragay waajib ku tahay laakiin dumarka uma taalo ilaa in dalka la qabsado mooyaane haddii dalka la qabsado ragga dumarka odayaasha ciyaalka cid waliba madfaca dhinacooday ka soo ridaysaa ruuxa dumarka ah haddii maalan wax la guurinayo guurka ragga loo xil saaray dumarka looma xil saarin wakiilna kama noqon karaan guurka waayo ilaahay baa yaqaana xigmadoo caatifada ku badan hadduu mid iskala yar mid afmishaari uu helo uu yar macmacaaneeya hadalka xaraaradda laga yaabaa inay ku kacdo dabeetana uu jiirsiiyo marka cid caatifadeeda ka madax bannaan oo xaaladda la qiimeyn karta ninkan inuu inanta mas-uul ka noqon karayo in kale waa in la hela caqliyadeedii way qabtaa laakiin sharcigu taasuu markaa waajib ka dhigay gabadhi nafteedana ma guuriso iyaduna cid kalena ma guuriso nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam arrimaha islaamku ku dheeraadsiiya dumarka waxaa ka mida ninkii iyo caruurtu hadday isku qabsadaan ninkii iyo xaasku hadday caruurta isku qabsadaan hooyadaa lagu horreysiinaya waxaa la leeyahay adigu hay ilaa ay 7 jir gaadhayaan waliba markay 7 jir gaadhaanna ilmaha waxaa la odhanayaa aabbo iyo hooyo iyomaa dooranaysa hadduu hooyo doorto uu raacaya waa baabkii xanaanada oo arrin xasaasiya waqtigan aynu arkayno kol haddii aan iyadu balaayo kala wadanin ama nin guursanin ninkuna hadday nin kala guursato waxaa la iska yaqaanaa dee inuu caruuraha iyo fiiladaa dheer iyo karaahiyeysto kuwanaad wadataabana dhibaydaasu odhanaya iyadii wuu doonayaa iyagii yaryaraana ma doonayo marka sharcigu saas uu kala reebay qofku inta badan waxaanu dhalin ma jecla soo maa wuu karaahiyeysanaya caruurtana meel lagu karaahiyeysanaya islaamku lama rabo iyo nin nacayo faraha ku fiiqfiiqaya oo iyadiina jecel iyagiina neceb saasay ku waayi karaysa dee xanaanada wilaayooyinka caamka iyo arrimaha siyaasiga xasaasiga ah iyadana hawshaana waa laga fududeeyey arrimaha guuda caamka ah magihii bay ku kala duwan yihiin siday u kala duwan yihiin waxa weeyaan dee way kala badan yihiin magti laakiin dhinacan kale markaad ka eegto magta islaamku raggunbuu ka qaadaa dumarka kama qaado iminka haddii ruuxa dumarka ah ay waxgeysato dee tolkeed baa magtii bixinaya laakiin miyaa aragteen dumar la ydhaa xaawaley soo ururiya magtii
iyaga magaciidina weydiin maysay halkoodaasay qasnadooda iska haysanaya raggun bay odhanaya war dee magta iska bixiya annaguna intaasaanu geysanee dee naga bixiya maxaa naga soo eegaysa akownkoodiina iyagoo wuu buuxaa marka intaad eegaysa magta laban ee rag iyo dumarku ay ku kala badan yihiin waxaad eegtaa magtan raggii un lagu waajibiyeen dumarba laga doonay halka waa la kala badiyay magtiina waa la kala badiyay rag iyo dumarka oo dee ninkii dumarkii dee diyadii waa kala duwan yihiin sidoo kale tii laga doonayna way ku kala duwan yihiin oo raggun baa mag la weydiiyaaye oo maxay yidhahdaan qabna iyo qoodho leh soo maha dadka qaarkood qabnay ku ururiyaanoo qabnadu waxa weye dadka ragga waxhaystaa laga ururiyaa qoodhownuna waxa weye mid kastoo lab ka soo qaada bay yidhahdaan wax dumar sheega maynaan arag sharciguna ma sheegin ummadda kalena may sheegin waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin dhaxalkii baa ka mid a isagana soo aragnay mas-uuliyaddii nikaaxa ama dalaaqa cadadbixii oo iyadii ay tirsanayso isaga aanu tirsanayn arrimahaas waxay isugu jiraan marka la soo ururiyo ilaahay sidan uu jideeyey qof walba waa wixii ku wanaagsanaa markaa qofka yidhaahda anaa ilaahay ka xariifsan oo dadkan isweydaarinaya jawaabtii waxa weeyaan taa ay sheegtay xanna bintu faaquud ummu maryam walaysa dakaru kalunhaa wallahu subxaana wa tacala aclam